dugsiyada al irshaad schools بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أردي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيصة دي اللباد يعني سوون معدنو أونلاين كا فصل كين اللحاد مادة حسابتها مقا عيقوا مع الحسن محمد عبدي مركها وحنو بلامن دونا 10 كين إن شاء الله تعالى وكبلاب ما يمانتها وفصل كين اللحاد chapter waa chapterka 4.4 page-ka uu ku yaala waa 138 ciwaankuna waa time waa 10 keeni inoo sii socday time-ka ayaynu ka shaqeynaa qaybtiisii koowaad aan soo qaadanay qaybtiisii labaad ayaynu maanta bilaabanaa insha Allah taala marka ilaa waxa laga weydiiyo 3 su'aalood baa laga weydiiyay 3 su'aalood baynu ka shaqeynaa marka su'aasha koowaad waxay leedahay how many hours are there in 125 minutes 138 minutes how many hours imisa saacadood baa are there in ku dhex jira 125 minutes 125 minute iyo 138 minutes marka waxaan naqaanaa halka minute inuu leeyahay 1 hour ku inuu leeyahay 60 minutes halka saac waxa uu inoo leeyahay 60 minutes marka waynu ka shaqeynaa su'aasheena koowaad 125 minute ayaa waxaynu u bedelnaa hour isu qaybin baa markaa adeegsanaa 125ka minutes ayaa waxaanu u qaybinaa 60 si aynu hour ugu bedelo 125 haddaan 60 u qaybino isku dhufashadii baynu ka eegnaa tirada markaan halkaa dhigano ee aan ku dhufanay 60 ina siisa 125 ama wax ku soo dhow marka labaynu u siinaa 2 times 0 waa 0 2 times 6 waa 12 waan kala jarnaa 5 minus 0 waa 5 kiun 2 minus 2 waa 0 1 minus 1 waa 1 marka 125 kiini waxay noqonayaan 2 saac 2 hour and 5 minutes 125 kii minutes waxay isku bedeleen 2 saacadood iyo 5 mir su'aashii eedaan ka shaqeynay b dow kaalay question b sidaas leeg baan uga shaqeynaa iyadoo waa 138 minutes marka hour baynu u bedelnaa kadib waxaan sameynaa isu qaybin baynu adeegsanaa 138 ayaa waxaanu u qaybinaa 60 kol walba waxaanu u qaybinaa 60 marka 138 loo qaybiyay 60 isku dhufashadii baynu ka eeganaa tirada markaan halka dhigano ee aan 60 ku dhufano ina siisa 138 waa laba baa ugu dhow waa 2 times 0 waa 0 2 times 6 waa 12 marka 0 8 ka jir waa 8 3 minus 2 na 1 baa soo haraya 1 minus 1 waa 0 marka answerkeenu wuxuu noqonayaa jawaabtu su'aasheenu 2 saac 18 minute bay hanayaan 18 minutes waxay noqonaysaa 2 saacadood iyo 18 minute bay noqonaysaa 138 minutes waxay isku bedeleen 2 hour and 18 minutes su'aasha labaad baan ka shaqeynaa how many hours are there in imisa saacadood baa ku jira 2 days imisa saacadood bay noqonayaan bid waxay leedahay 3 weeks and 1 day 3 saacadood iyo 3 week iyo hal maalin imisa saacadood bay noqonayaan marka hour weeyaan waxaynu waa days baynu haysanaa waxaynu u bedelnaa hour baynu u bedelnaa su'aasheena markaa labaad qaybtaasaan ka shaqeynaa xaga maan la teganaa question number 2 ga xaga maan ka shaqeynaa su'aasha eedu waxay ka kooban tahay 2 days bay noqonaysaa marka laba cisho imisa saac bay noqonayaan waxaan naqaanaa 1 day halka maalin 10 kiin hore waxaan ku soo dhiganay inay maalintu 1 day gu u dhigmo 24 hour 1 day wuxuu dhigmaa 24 hour marka 2 days kii imisa noqonayaan 2 days kiina imisa saac bay noqonayaan calaamad su'aal 2 ga iyo talantaali baan isku dhufanay 2 days ka waxaan ku dhufanaa 24 hour ka marka waxaan leenahay 2 days
times 24 hour divided by 1 day. Dayga iyo daygaas way iskoosanayaan 2 times 24. Jawaabtu waxay noqonaysaa 48 hour. marka labadii cisho waxay isku bedeleen 48 saac bay noqdeen. isla su'aasha labaad baynu ka shaqeynaa bida oo ah 3 weeks and 1 day. marka laba qaybood bay ka kooban tahay. qaybta hore waa weeks, marka weekskaynu days u bedelnaa horta. 3 weeks waxay noqonayaan 3 weeks. 3 weekski waxay u dhigmaan days 7 baynu ku dhufanaa 3 times 7. waayo 1 day muxuu u dhigmaa 1 week wuxuu u dhigmaa 1 week wuxuu u dhigmaa 7 days. marka 3 weekskina imisa noqonayaan saasoo kale aan uga shaqeynaa. marka 3 gaan 7 ku dhufanaa si ay noogu soo baxdo 21 days. 21 days. marka saddexdii week waxay isku bedeleen 21 cisho maalintaana waynu geynaa. deedna waxay noqonaysaa 21 plus 1 22 days. talaabada koowaad aan qaadnay waxa weeyaan inaan isku bedel sameyno oo aan 3 weekskii u bedelo day. 3 weekskii baan day u bedelay. marka 21 cisho noqdeen. 21kii cisho maalintaana waanu sii geynaa. 22 cisho noqonayaan. kadib waxaan u sii bedelnaa hour. marka waxaan naqaanaa halka maalin inuu inoo leeyahay 24 hour. 22 dayskiina imise saacadood bay noqonayaan. talantaali baan markaas isku dhufanaayo 22ga iyo 24kan isku dhufanaa. oo waxaan leenahay 22 days times 24 hour divided by 1 day. 1 day baan u qaybinaa. 22 iyo 24 waan isku dhufanay inagoo cross multiplication isticmaalna. 1 day-gaana waan u qaybinay. marka day iyo day way iskoosanayaan iyagu. 22 baan ku dhufanaa maxay 24. then markaan 22 ku dhufanno 24 4 times 2 waa 8 4 times 2 waa 8 2 times 2 waa 4 2 times 2 waa 4. isku gee 8ka waan la soo deganaa. 8 iyo 4 waa 12. 2ga dhiga 1 baan sidanaa. 1kaas sidanayna 4ka uga waa 5. jawaabteenu markaa waxay noqonaysaa 528 hours. markaa saddexdii week iyo maalintii waxay noqonayaan 528 saacadood. su-aashii labaadna saasaan kaga shaqeynay. su-aasheena saddexaad waxay leedahay how many weeks and days are there in 25 days? B 57 days. how many weeks imisa toddobaad and days iyo maalmood are there in ayaa ku jira 25 days oo eya iyo b oo ah 57 days. su-aasha labaad ayaynu iyadna ka shaqeynaa. question number 2ga ayaynu su-aasha saddexaad baan u jeedaa. su-aasha saddexaad eedu waxay leedahay 25 cisho waa 25 days. markaa 25 cisho ayaynu u bedelnaa markaasi week. waxaan naqaanaa 1 weekii inuu u dhigmo 7 days. 7 days. markaa 25 dayskii 25 dayskii imise week bay noqonayaan baan isweydiinaa. calaamatu su'aal. talantaali isugu dhufan markaa 1 week iyo 25ka ayaynu isku dhufanaa. markasta cross multiplication baan isticmaalnaa isku dhufashada talantaaliga. markaa 1 week times 25 days divided by 7 days. markaa days and days way isku hoosanayaan. 1 times 25 waa 25 week divided by 7 days. waay 25 toddoba u qaybinaa marka. imise week bay noqonayaan. 25 haddaan u qaybino waa 3 week. 3 week and
1 day معناها 25 كهيا waxaan u qaybinaa halkaas aan kaga shaqeynaa 25 loo qaybiyo 7 25 7 oo qaybiyo 3 baan u siinaa 3 7 ku dhufto 22 5 halka jiro waa 4 labana laba ka go'aa 0 marka 3 weeks and 4 days ma noqonaysaa 4 kaas markaa sorry halkaas waa 4 days 3 weeks and 4 days ma noqonaysaa su'aasha ugu dambeysay bida oo iyadna 57 days ayaa waxaynu u bedelnaa week marka sidii su'aasheenan eedaan uga shaqeynay uun baan iyadna uga shaqeynaa waxaan leenahay 1 week waxa uu inoo leeyahay 1 week waxa uu inoo leeyahay 7 days marka 57 days kiina imsa week bay noo leeganeen calaamad su'aal talantaale ma isku dhufanay 1 week 57 ka isku dhufana 1 week waxaynu ku dhufananaa markaasi times 57 days divided by 7 days ka sano qaybina 7 days marka days iyo days way isku hoosanayaan 1 week times 57 waa 57 week divided by xagga hoose 7 bay noo yeelan marka 57 baynu 7 u qaybinaa isu qaybintaynu sameynaa 57 loo qaybiyay 7 marka isku dhufashadii baan ka eegnaa tirada markaan halka dhigano ee aan ku dhufano 7 ina siisa 56 ama wax ku soo dhow 8 baynu siinaa waayo 8 times 7 ayaa wuxuu keenayaa 56 7 minus 6 waa 1 5 minus 5 na waa 0 marka jawaabteenu waxay noqonaysaa answerkeena u dambeeyaa 8 weeks and 1 day marka 750 cisho waxay isku bedeleen 8 week iyo hal maalin 8 week iyo hal maalin casharkeenu markaa maanta intaas ku saabsan insha Allah taala page waa 138 exercise ku yaala ayaad ka soo shaqeyn doontaan intaynu casharkeenka ku xigo ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh iyo shaqo wanaagsan insha Allah dugsiyada al irshaad schools